taasi waa hababka cusub ee DNA-da haddii aan aadno dhaqamadii horena qaar ka mid a dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ayaa bilaabay in ay daystaan timaha waxayna aaminsan yihiin in ay ka mid tahay siyaabo dhaqankii hore dib loogu soo nooleyn karo timahooda badan awgood waxa ay noqdeen kuwa ka tilmaaman dadka kale maadaama inta badan jiilka cusub ay timaha gaagaabsadaan maxamuud cabdicasiis ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho timadheera waan soo ahaatani wiil waale dhaqan lagu tanaadan argiyo tacaabur shaydaani itaageera Soomaaliyay waan tartamayay cabdirasaaq hogal caafi waxa uu suugaan ku difaacayaa daysashada timaha waa dhaqan sii dabar go'aya laakiinse waxa uu doonayaa inuu dhaqankii hore xusuusiyo jiilka cusub dhaqankeenu waa inaynu ku adkaysanaa oo haysanaa ma fiicna inaynu u hanqal taagno hilaacyo been ama ummad kale dhaqan ay leedahay raganimadeena liidnimo ku tahay Soomaalinimadeena liidnimo ku tahay jiritaankeena liidnimo ku tahay dhalinyaradani asxaabta ahi waxa ay qabaan in daysashada timaha aysan u baahnayn hawl ka badan midda dadka timaha gaabsada kana qurxoon tahay qofka tintaadoo kale gaaban leh waqti ka gala ka badan igama galo waa soo qubaystaa shukumaana mariya waa shanlaysta waa socdaa kaliya shanladan ku kala duunaho meeshan la carbida yar aad ka isticmaashaan shanlageeda isticmaalaa ama shanla caago tii oo aafrada la dhaho dheer ah xilliga qoraxda daran jirto marka aniga qof isla socon aniga waxaan haystaa har uusan qofka haysan roob yar oo tiitiixa markuu socdana oo qofka uu wajiga gacan saarayo ani tintuu maawniga iska socda timo jaristu waxa ay noqotay xirfad ay nolol maalmeedkooda ka soo saartaan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed maadaama heerka shaqo la'aanta dalka uu aad u sareeyo dhalinyarada Soomaaliyeed intooda badan ayaa isticmaala qaabka casriga ee timo jarista oo qaabab kala duwan leh dhalinyaradan kuma gudbiyaan fariimahooda inay dadka la kulmaan oo kaliya laakiin baraha bulshada oo inta badan dhalinyarada aad u isticmaasha ayay ku baahiyaan sawiradooda dhalinyarada badan markaan tasawir iska soo qaada aan Facebook galiyo oo dhaqanka ka turjumayo aad ay u amaanaan kuwa la yaabaan waxaan arkaa codsiyo badan oo markaas iga imaaday bulshada kuwa dhiiri gelinayo si wad iyo kuwa inaan kugu dayana rabno oo dadaad soo marno marka dabcan dhiiri gelinay ee taa markasto aan sawir soo dhigo awal hore sawiradan soo dhiga social media markaan Facebook kala sawir soo dhigo ma lahayn wax comment iyo like midna hadda laakiin waxaan dareemayaa in dadka aad u xiiseynayaan oo markaan soo dhigaba ay aad u badanayaan